gabadhan iyadoo cadhaysan bay carruurteedii habaartay habaarkiina ilaahay oo ka aqbalay oo carruurteedii oo dhan ayaa dhintay habaarkii habaartay haddaba 34 sano kadib weli waxay dul joogtaa xabaalihii carruurteedii ay habaartay iyadoo wareegsiyada qaarkood ay ku qoran tahay inay ahayd 43 sano ka hor meelaha qaarkoodna waxa ku qoran 34 sano ka hor ayay carruurteedii ahayd xilliga ay habaartay welina xabaashoodii ayay mar walba tagaysay dul fadhidaa waxaana fiidiyoda qaarkood arkaysa iyadoo calaacalayso la maxay ugu watay daba nabigu wuxuu yiri nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay naftiina ha habaarina ubadkiinana ha habaarina adduunkiinana ha habaarina lialla tuwaafiquu min allahi saacatan yustajaab calaa macna alxadiid si aydaan u waafaqin saacad habaarka la aqbalayo lidka habaarkiisu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xadiista ka asaxday 3 baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwatul waalid riwaayaadka qaarkoodna dacwatul waalidi calaa waladihi ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinnu iyo habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaa iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo Soomaaliyan u taaglaana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyay bay qabaan haddaba carruurtaada habaarin laga yaabaa gabadha waxa ku dhacay inay kugu dhacaan